السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد، waxaan rabaa qisiyar cajiib badan dhacday inaan ila wadaago. waxay ku saabsan tahay qofka hadduu xanaaqo maxaa xal u ah. qofka hadduu xanaaq ka tanbadi ama qofka xanaaji maxaa laga rabaa inaad samayso. bal xogaa qisadan yar ila dhigeyso. Abi Dhar al-Ghafari radiyallahu anhu warda hadda koor maalin asiga xadiidkan ka sheekeynayo wuxuu dhahay anigu birkad aan dhisay aan hagaajinayo dhahay birkad aan dhisay kadib saddex wiil aan arko meel ka soo socoto oo xaggii u soo socdaan waxaas dhahay wiilishan amay ku saaciday rabaan oo garbi ku sii rabaan oo birkad ku dhis rabaan ayagana waxay ka sheekeynayaan yaa macnaha saddexdiina yaa awood u leh inuu birkadaas soo jijibiyo. markay soo dhawaadeen Abu Dhar al-Ghafari wuxuu dhahay midkooda wuxuu sameeyay xaraamtii wuxuu ku dhuftay birkadii aan dhisay xilli aad u qurux badan oo yani qoraxda aad ay ku leed birkadii ka jijibiyeen Abu Dhar al-Ghafari wiilal iska yani dhalinyar iska yar ahaayeen. Abu Dhar al-Ghafari wuu carooday wuu xanaaqay laakiin muxuu sameeyay wuu iska fadhiistay. dhalinyartii waxay isdhaayeen Abu Dhar al-Ghafari intuu xanaaqo oo qayliyo gacan qaado aligi sugay laakiin Abu Dhar al-Ghafari radiyallahu anhu markuu arintaas ay ku sameeyeen birkadii ka jijibiyeen asigana aad u xanaaqo iska fadhiistay wax kale muusan sameyn. kadib uu iska fadhiistay way weydiiyeen maxaa u fadhiistay dheen anagu birkada jijibinay waxaan sugeynay inaad dagaal iyo waxyaabahaas aad bilowdo. markaas wuxuu ku dhahay waxaan rasuulka sallallahu alayhi wasallam ka maqlay idha qadiba ahadukum falyajlis ahadkiina hadduu xanaaqo caroodo ha iska fadhiisto hadday xanaaq ka tagto waa ka hadiisan wiil xanaaq ka tagin ha seexdo rasuulka sallallahu alayhi wasallam. marka wuxuu anigana waa fadhiistay si uu xanaaq iga tago. marka ahbaabi fil aqeeda fiiriya Abu Dhar al-Ghafari birkad adu ku daashay dhismihiisa oo hadina xilli kuleel ay tahay in lagu imaado in laga jijibiyo oo ewer laga sii birkadaad ku daasharan maxaad sameeyay dagaal iyo waxyaabo loo joogna sameeyay. laakiin fiirso Abu Dhar al-Ghafari xadiidka nabi sallallahu alayhi wasallam uu ku dhaqmay wuuna ku guuleysay najaaxi uu meesha keenay xanaaqiisna iska dejiyay. idan qofka xadkeena hadduu xanaaq waxa laga rabaa marka inuu fadhiisto haddii xanaaqu ka tag waay seexo taas xal weey oo rasuulka sallallahu alayhi wasallam inoo siiyay xalka ahbaab fil aqeeda aan ku dadaalno marka anagana aan raacno aan sameeyno sida Abu Dhar al-Ghafari uu sameeyay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.